mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho markii uu ka soo degay ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo boqolaal shacab ah oo u yimid soo dhaweynta madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud oo qaybta nasashada ee giigida diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay booqasho rasmi aan ahayn oo uu ku tagay dalka Turkiga iyo kulamo uu la soo qaatay ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi wax ka barata waxaan ka soo noqday safar gaaban oo aan ku tagay dalka Turkiga safarkayga safar official ah oo booqasho rasmi ah ma ahayn safar gaar oo ahaa waanan muxuu ahay dadka Soomaalida iyo ardayda iyo madaxda Turkiga intii suurtagal ahaydna waa soo wada aragnay wixii maslaxada Soomaaliya iyo Turkiga kala dhaxeeyay waan kala soo hadalnay madaxda intii aan aragnay waqti aad iyo aad xasaasi oo doorashooyin iyo campaign xoog leeyahay ay socdaan ayaa lagu wada jiray aniguna fasaxayga tagideyda markii hore meesha fasaxay ahayd ma ahayn booqasho rasmi ah oo shaqo ma ahayn waana soo dhamaatay waana fiicanahay boqolkiiba boqol wax ka dhibaato ama jiraan taas waa intaas madaxweynaha dalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir saxaafadeedka uu qabtay markii uu dalka maanta soo galay waxa uu sidoo kale uga hadlay falalka argagax lagu galinayo shacabka Soomaaliyeed oo ay sameynayaan alqaacidada Soomaaliya isaga oo tilmaamay madaxweyne xasan sheekh in la taagan yahay waqtigii la soo gabagabeyn lahaa la dagaalanka al-shabaab isla markaana dawladda Soomaaliya ay si laba jibaarayso dadaalkeedii ku aadanaa sidii dalka looga saari lahaa argagixisada Soomaaliya ee al-shabaab baryahan dambe waad maqlayseen ama waad la socotaan dhibaatooyinka nimankii nabadiidka ay wadaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa way dhaqdhaqaaqa ugu dambeeyay ay sameyn kareen waaye waa cabsi waxa ka keenaya waxaas inay sameeyaan ummadda waxaan weydiisanaynaa bilaha soo socda ay wuxuu noqonayaa hadii Ilaahay yiraahdo xilligii ugu dambeeyay ee shabaab dalka meel ka mid ah inay ka taliyaan ay suurowdo in laga xoreeyo laga sifeeyo gacantooda ay ka baxdo gacanta dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ayagoo inay ka tashadaan ay ku soo noqotaan rajaynayna dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa guud ahaan meel kasto ay joogaan inay muujiyaan midnimo ay u midoobayaan in dalka laga qabto cadawgaas soo jireenka muddada dheer soo jiray inay joojiyaan waxyaabaha maxaan ku raadaan aan macnaha badan ku fadhiyin khilaafaadka siyaasiga ah iyo maxaan ku raadaan dadka siyaasadda maxalliga localka ka shaqeeyay in la joojiyo maanta maalintii cadawga dalka muddada soo haystay ee dawlad la'aanta nabaday ee annaga dhanba jiritaankeenna iyo dadnimadeena iyo dalnimadeena iyo diinteena intaba cadawga ku maalintii aan iska saari lahayn oo iska kicin lahayn waay marka wax ka muhiimsan arintaas oo maanta lagu mashquulahay ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee